إنما يتذكر الألباب marka hore waxaan salaamayaa madaxda xildhibaanada wasiirada boodhka jaamacadda ardada qalin jabinaysa iyo martida ka soo qayb gashay xafladan qalin jabinta runtii IPS ahaan aad bay noo farxad gelinaysaa inaan maanta ka soo qayb galno xafladan qalin jabinta ee aad ka quruxda badan wax laga soo qayb galo oo la taageero oo la garab istaago meeshii ugu fiicneed iyo xafladii ugu fiicneed inay tahay oo ay mudan tahay ba aaminsanahay ardada qalin jabinaysa waa hambalyeynaya runtii waxa idin soo dhamaaday chapter kamid ah chapterada nolosha haddana waxa idin bilaamaya chapter cusub oo nolosha ah waxa idin sugaysa nolol aad markaan kali ku tahay la rabo inaad responsible noqoto la rabo inaad mas'uuliyadaada nafeed ilmahaaga reerkaaga dhammaan inaad qaado soo markaan waxa u baahan tahay inaad noqoto qof adag oo halgan gali kara oo survival gali kara oo struggle gali kara oo suuq iska celin kara waxaan rabaa inaan xoojiyo laba arinta koowaad waa dhalinyarada maanta baratay suuqa anaka idinka horeynay wax badan baana ka ognahay banki ahaan waxaan ognahay qofka dhalinyarada ah markuu jaamacadda ka qalin jabiyo inuu fresh yahay maskaxdiisuna ay nadiif tahay idea badanna ay ka buuxdo markaas wuxuu samayn karaa inuu business asagu abuurto inaad shaqaalo noqoto oo aad 8 hours oo kamid ah saacadahaaga aad shaqaalo ku noqoto waxa ka fiican in 24 hours adigu aad shaqaysato naftaada ku tashato waxa adiga aad soo saarto adigu aad maaragtay magan gasho hadii aad mushaar yar maanta u ordayso oo shaqaale inaad noqoto waxa kaaga fiican shaqo yar oo adigu aad samaysato banki ahaanna waxaan diyaar u nahay oo aad nasiib u yeelateen waqti bangiyada Soomaaliyeed ay cagahooda ku istaageen diyaarna u yihiin qof kasta oo fikrad macquul ah oo shaqaynaysa la yimaada inaan u maalgelino inaan taageerno inaan garab istaagno qof kasta oo hadduu ahaan lahaa caafimaad haddii ahaan lahayd economics waxa ani faculty aad barato waxaan diyaar u nahay inaan kugu maalgelino kaliya adiga hadda wixii ka dambeeyay waxa lagaaga baahan yahay gurigaaga maanta markaad ku noqoto qalin iyo buug soo qabso waxaad tiraahdaa maxaad ku fiican tahay xagee maanta u dhaqaaqaya wado cusub baad qaadaysaa maanta xagee rabaa inaa aado ma shaqaale ku tiirsanaado qof shaqadiis baan rabaa inaan noqdo mise waxaan qof nafsadiisa hormariya oo asagu waxa uu shaqeeyay maalintuu rabana seexan kara maalinkuu rabana shaqaysan karo oo horumar samayn kara inaa yahay diyaar baa idin nahay bangi waa idin furan yahay waa noo imaan kartaan waa in maalgelinaynaa jaamacaddan horaan ula shaqaynay ardadeedana waxaan diyaar u nahay annagoo jaamacadda ku shafrayna qof allaaliyo qofkii noo yimaada oo maalgelin iyo ID noola yimaada inaan ku maalgelino lana shaqayno hambaliyaan mar labaad in leeyahay aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh